السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دقيستيال ميل والبو أجوكتان و24 بشا فبروري 2020 qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaa qayb ka midnimo oo shalay guulka heshay naadiga gaadiidka kulan weyn oo laga ciyaari doono horyaalka Soomaaliya Premier League MCC sidoo kale dekada oo galabta ku balansan garoonka Engineer Yariso daayirta Liverpool oo u soo baxay wareegga xiga ee koobka FA Cup-ka Chelsea oo gacanta u gelisay Frank Lampard lacag dhan 150 milyan oo pound xagaaga kooxda Juventus oo kula tartami doonto Bayern Munich saxiixa garabka Loresani United-ka oo doonaysa in Sergio Romero booskiisa ay keenan xidiga lagu magacaabo Lee Grant Manchester City oo bartaameed ka dhiganaysa laba daafac dhexe ah United-ka oo mudnaanta siinaysa soo qaadashada Jack Grealish kooxda macallin Pep oo u ogolaanaysa Joao Cancelo inuu baxo Atletico Madrid oo soo bandhigtay baahida ay u qabto ciyaaryahanka qadka dhexe Barca iyo Rakitic tababaraha Tottenham Jose oo rajeynaya in weeraryahankiisa Harry Kane uu soo laaban karo xilli ciyaareedkan Lionel Messi oo dhaleeceeyay agaasimaha Sporting Barcelona Eric Abidal wararka kale ugu hadal haynta badan barnaamijka waad ku maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka xulka waxaa dhegeystayaal mar kale ismaqal wacan barnaamijka ayaa sii guda galaynaa waxaan si ku horeyn doonaa ciyaaraha Soomaaliya Premier League ama horyaalka Soomaaliya Premier League oo shalay kooxaha gaadiidka midnimo ay wada ciyaareen iyadoo kulan weyn galabta la ciyaari doono balse iyadoo aan ku horeyn doono kulankii shalay ee la ciyaaray haddii aan wax ka weydiino oo studio waxa inagu la sugan Daariq ciyaartii shalay midnimo iyo gaadiidka ay wada ciyaareen bal haddii aad inoo bilowdo kooxda kubadda cagta ee gaadiidka waa kooxda ugu hooseysa ee horyaalka Soomaaliya ee Premier League marka laga soo tago Jasiiro oo hal dhibic leh iyagu waxay leeyihiin 3 dhibcood waxay ciyaareen 6 kulan shalayna wuxuu ahaa kulankoodii lixaad midnimo la mid ahayd oo iyadana shalay ciyaaraysi kulankeedii lixaad ee horyaalka Soomaaliya Premier League qaybta koowaad ee ciyaarta midnimo iyo gaadiidka waxa lagu kala maray gool iyo eber waxaana ku hogaaminaysa kooxda midnimo ciyaaryahanka khadka dhexe Cabdiraxmaan Obo ayaa kubadda u caawiyay xidigii hore ee Horseed Cabdiqaadir Maxudiin Yariis gool u bedelay marka la soo tashtay 15 daqiiqo dib la soo laabtay qaybta labaad ee ciyaartu dardar xoogan ay ku soo galeen ciyaartooyda kooxda gaadiidka laakiin way ku hungoobeen inay goolka barbarac keenaan daqiiqadii 8aad ayaa loo labeeyay waxaana goolka labaad midnimo dhaliyay laacibka la yiraahdo Cabdiqaadir Maxudiin Yariis kaas oo Horseed hore u soo maray si amaan hadda midnimo ku jooga ugu dambeyntii ciyaartii midnimo iyo gaadiidka waxay ku soo ilaatay 2 gool iyo eber oo ay ku adkaadeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta midnimo shalay guusha ay gaartay waxay kaga dhignayd inay hadda leedahay 7 dhibcood 6 kulan ay ciyaartay horyaalka Soomaaliya Premier League 3 guul dara ku dhacday 2 jeer ee badis hal nambar barac ay gashay halka midnimo shalay guul daradiisa waa gaadiidka guul daradiisa oo gaartay kaga dhignayd guul daradii shanaad tan iyo bilowga horyaalka kaliya hal jeer ay guuleysteen waxaase ku dhacday 5 guul daro 6 kulan ay ciyaareen hal guul ay gaar wax bareej maysan galin macallin cusub oo ogsoon yahay in loo dhiibay kooxda gaadiidka oo ajnabi ah kulankiisa labaad ayuu shalay leelinayay guul daro ayaana ku dhacday shalay ciyaartooy far badan ka maqneed kooxda kubadda cagta ee gaadiidka Shooliya kamid ahaa Daadir Xasan Cawaal Daadir Cama kamid ahaa sidoo kale kabtankooda kamid ah Cabdi Khaliif isna wuu maqnaa haddana kooxda uu weli wajigabax iyo waxay ku jirtaa dhibaato xoogan haddii macalinka la bedelay haddii kooxda performance-keeda kor loo soo qaaday waa kooxda ugu hooseysa iyada Jasiira ugu hooseeyay midna waxay leedahay 1 dhibic midna 3 dhibcood leedahay marka midnimo shalay wadadii guuliga ku soo laabatay hadda waxay fadhisaa kaalin toddobaad ee kala sareynta horyaalka ee Soomaaliya Premier League midnimo guusheeda waxay kaga dhigneed inay wadadii guulaha ku soo laabatay kadib 2 guul daro xiriir hor ugu soo dhacday watahay markaan eegno galabta waxaa jirta ciyaar weyn oo u dhaxeysa kooxaha waaweyn ee dekada iyo sidoo kale Muqdisho City Club ciyaartaasi dad badan ayaa isha ku haya siyaabo kala duwan marka waa looga aragti dhiibanaya markaad eegto labadani kooxood iyadoo oo dekada macalinkoodii Yu Cali oo soo ileystay ganaaxi ciyaaryahanada kulankan la filayo in ay ka soo muuqdaan kuwa seegi kara bal haddii macluumaadka kooxahani aad inala wadaagto haddii aan dul istaagno kulanka galabta jira ee dekada iyo Muqdisho Club labadan kooxood waxay qayb ka yihiin kooxaha ugu waaweyn ee horyaalka Soomaaliya ee ku loolama
dekada saddexdii sane ugu dambeeyey ku guuleystayaasha horyaalka ee halka m c c marka laga reebo sanadkii ugu dambeeyey sanadihii kale lasoo dhaafay sida 16 17 18 15 14 sanadahaas ama horyaalkii qaadiisa ama kaalinta labaad ay ku dhameysanaysay marka laga soo tago sanadkii ugu dambeeyey oo kaalinta shanaad ay ku dhameysatay kooxda way isbedeshay ciyaartoy fara badan la keenay m c c macalinka laga bedelay weliba macalinkii laga bedelay m c c xuseen balaango oo waqti badan 5 sano hogaaminayay kooxda taariikhdiisa 5 sano ayuu ka howlgelayay wadankan Soomaaliya oo uu ka shaqeynayay horyaalka Soomaaliya isagoo kooxdan macalin u ahaa weliis kama adkaanin Yu Cali badina aan bareeji galayay waxyaabahaas sabab ah in macalinku shaqadiisa waayo macalinkan la keenana kulankiisa ugu horeeyay oo uu ciyaaro kooxdan uu leeliyay Yu Cali uu koobka Jardaawud ka adkaaday marka macalinka oo hadda m c c isagoo Yu Cali u baroweysan ayuu galabta wajahaya waliba Yu Cali sidaas sheegtay ganaaxii uu soo ilaaday waliba kulankii ugu dambeeyay uu soo degayba Real Green uu bixiyay sida awgeed ganaaxii dheeraha waa laga qaaday galabtana kooxda isaga leelinaya sanad kulankii ugu dambeeyayna uu soo degay oo kooxdu oo qayb ka ahaa marka la isku barbardhiga labadan kooxood m c c iyo dekada taariikh foga ka dhaxayso tan iyo sanadkii 2014 waxay wada kulmeen 12 jeer 6 kulan dekada ayaa adkaatay 4 kulan bareeje ku dhamaatay 2 jeerna m c c badisay rikoor ahaan waxaa moodaa inay dekada fiican tahay dekada 14 dhibcood ay hadda leedahay 6 kulan oo ay horyaalka ciyaartay 4 kulan ay guuleysatay 2 bareeje gashay wax guuldaraha ma aysan arkin halka muqdisho kalaab 12 dhibcood ay leeyihiin kor kulanka galabta 6 kulan ay ciyaareen 3 kulan ay badiyeen 2 bareeje galeen hal guuldaraha ku dhacday Yu Cali iyo macalinka la yiraahdo Mohamed Mesteri ayaa kulankooda ugu horeeyay isaga hor imaaday kulan tartanka Jardaawud sanadkii la soo dhaafay heerkiisa guryada m c c macalinkooda ayaana adkaaday laakiin horyaalka waa kulankooda ugu horeeyay galabta isaga hor imaanayaan Faisal Xaashi galabta wuxuu kor imaanayaa kooxdii uu la soo qaaday 2 horyaal iyo 1 Super Cup oo dekada ah isagoo xiran maaliyada kooxda m c c 6 kulan ayuu hadda kooxdan u saftay 5 gool u dhaliyay halna wuu caabiyay marka 6dii kulan ee uu kooxdu ciyaaray saameyn xoogan ku lahaa hadda waxa la isweydiinayaa dekada ka maqan m c c yaa ka maqan dekada markaan fiirino dhamaan ciyaartooydu waa taam laakiin waxa wali dhaawac qaba daafacooda ninka la yiraahdo Idris Amin kaliya ayaa ka dhaawacan dekada halka m c c macalinkooda koor kulanka uu shaaciyay ama uu sheegay in kulanka dekada ay ka maqan yihiin Saciid Abaas Cali Saciid Yemen oo qaranka ku soo dhaawacmay kabtan Ciise Cabdiqaadir Maxamed oo isna kulankan kii ka horeeyay dhaawacmay kulankii ugu dambeeyay maqnaa dhaawac madaxan uu qaba sidoo kale waxaa ka maqan kooxda kubadda cagta m c c daafacu dambeed ka bidix ninka reer Uganda ee Frank kaas oo isna kulankii ugu dambeeyay qaatay Xasaan marka Faisal Hazada maqan oo isna safar galay maanta la sugayay xitaa hadduu imaado 18 ciyaartooy kuma jira la leeyahay laga yaabo in lagu soo daro laakiin uma badna inuu ciyaari karo Faisal Hazard kaasoo kulimadii ugu dambeeyay kooxdan ka maqnaa tababarna aan la qaadan marka m c c waxaa ka maqan Saciid Yemeni Ciise Faisal Hazard iyo daafacuda Frank ayaa ka maqan laakiin xasidoo Hilowle helayaan oo dambeed ka bidix buuxin kara sidoo kale dambeed ka midigna kontona ciyaari kara sida ay u badan tahay markaan fiirino sida iska wada arkeen labadan kooxood sanadkii 2016 laba jeer is arkeen laba jeerba marna waxay ku dhamaatay gool iyo gool marna waxay ku dhamaatay eber sanadkii 2017 laba jeer is arkeen mar dekada badisa marna bareejo ku dhamaatay sanadkii 2018 laba jeer is arkeen mar dekada badisa marna bareejo ku dhamaatay sanadkii ugu dambeeyay 2019 kana labada lugba MCC waa laga badiyay marna hal eber lagu badiyay marna waxa lagu badiyay 3 waana kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka ay ku xaqiijiyeen sanadkii la soo dhaafay ciyaar 5 gool iska dhaliyo 3 ay ku adkaatay oo dekada ay ku badisay marka kulankan il gooniya lagu wada hayaa dadka ciyaaraha falanqeeya waxay labadan kooxood ku qiimeeyeen in fafledka ciyaarta galabta ay ugu cadcadahay dekada maadaama nimankan iyagana MCC cadaadis saaran waxa loo aanay inay maqnaanshaha ciyaartooyda qaar iyo dekada oo iyagana ciyaartooydu tamaam yihiin xitaa Idris Amin safka koowaad line up ma ahayn marka la fiiriyo halkaas ciyaartooy ka maqan laakiin nimankan waxa saameyn ku yeelanaya Ciise oo kulankii la soo dhaafay kan galabta maqan Faisal Hazard laakiin culays xoogan ay wajahayaan dekada maadaama Faisal Xaashi ku hor imaanayo Faisal Xaashi kulankii ugu horeeyay oo ku ciis ka hor imaaday Jardaawud ku ahaa roose ku qaateen dekada rigooran way ku galeen
marka galabta cadaadis xoogana saaran shax isku dhafaa laga sameeyey labada kooxood golhaya waxaa loo soo qaatay golhayaha kooxda dekada golhaya xasiin dambeedka midig waxaa loo soo qaatay bilo bashiir colaad oo dekada ka tirsan difaacada dhexe waa baanu iyo sid cali baana oo m c c iyo dekada ka wada tirsan dambeedka bidixina waa waliij marka difaacada dambe waxaa moodaa in 3 ka mid ay dekad yihiin hal m c c uu yahay goolkan uu dekad yahay khadka dhexe oo kale Daa'ud Tuwaal Cabaas Amini Catoosh khadka dhexena waa lagu xoogan yahay ninkan m c c ah dhexda dhan waxay noqotay wada dekada Cabaas Tuwaal iyo Catoosh weerarkan waa Faysal Xaashi Xasaan Toos iyo Banteeka marka weerarka m c c noqotay dhexda waxay noqotay dekada difaacana dekada oo badan marka shaxaas isku dhafka laga sameeyay labada kooxood si hordhac shaxa waxaa la helayaa oo labada kooxood ay ku ciyaari karaan macalinka kooxda dekada wuxuu ciyaarayaa 4 dhex kulamada waaweyn caadiyan sidaas oo ciyaara marka la fiiriyo shaxda macquulka ee dekada galabta ku ciyaari karta golahaya xasiya ciyaaraya dambeedka midig bile bashir colaad difaacada dhexe Mabuli oo Uganda u dhashay iyo waliba Sid Cali Baana dambeedka bidixna wali khadka dhexe waxaa soo wada raacaya Daawud Cabdullaahi Tuwaal ciyaaryahan kale lambar 8 wato ajnabi ah lagu daray Cabaas Amini Catoosh ayaa la isku soo dari doonaa sida kulankii ugu dambeeyay uu ku ciyaaray macalinka oo uu kaga adkaaday Heegan marka waa Daa'ud Tuwaal Cabaas Amini Catoosh iyo ciyaaryahan ajnabi soo raacay qadka dhexe weerarkan waxay noqon karaan siday u badan tahay ciyaartooyda kala Qadar Yuusuf iyo ninka lambarka 9aad waa laga yaabaa in labada ciyaartooy weerarka ajnabi ka soo dhigo kooxda m c c macalinkooda inkastoo ciise uu ka maqan yahay si lamid ah Faysal Hasad uu maqan yahay haddana wuxuu haystaa shax fiican Faysal isagoo maqan labadii kulan ugu dambeeyay kooxda way adkaatay goolhaye Maaniya ku soo bilaabanaya dambeedka midig konton u badan tahay ciiraanka Nigerianka iyo Beno difaac dhex la isku soo dara dambeedka bidixna waxa ciyaaraya Xasan Siido Hilowle khadka dhexe waxaa laga yaabaa inuu macalinka ciyaaray laba kubad burburi waana Alex iyo waliba laacibka la yiraahdo Cali Umar Cali Yare waxaan lambar 10 ciyaaraya ninka la yiraahdo Xasan Santos labada garbana waa Jayne iyo Faysal Xaashi Cabduqaadir Aadan Eeno Benteeke ayaa tooran marka waa shaxda macquulka ee labada dhinac haddii m c c ay badiso kulanka galabta 14 dhibcood tagaysa oo dekada kula dhibcan noqonaysa waxay helaysaa fursad oo ay horyaalka ugu tartami karto laakiin haddii laga shaki weyn la gelinayaa inay horyaalka ku tartanto kooxda kubadda cagta m c c dekada idan cadaadis saaran haddii galabta badin weysay horseed iyo Elman soo bursanaya oo maalinta berita ciyaaraya marka fiirin 4 kooxood labada galabta ciyaaraya labada beri ciyaaraya dekada waxay leedahay 14 dhibcood m c c waxay leedahay 12 dhibcood horseed waxay leedahay 12 dhibcood Elman waxay leedahay 14 dhibcood marka haddii ay galabta fursad lumiso dekada Elman fursad haysato ay galabta ku soo badinayso oo beri ku soo badinayso haddii badiso hogaanka kaliya ku noqonaysa Elman haddii kulanka galabta bareejo ku dhamaado labada kooxood ee horseed Elman iyagana fursad kale helayaan haddii m c c ay badiso 14 ay imaanaysa oo nimankaasna bareejo taagan Elman hal dhibc hogaan ku qabanaysa marka Elman fursad fiican haysta haddii dekada laga badiyana hogaankii qabanaysa oo iyada badiso haddii dekada bareejo gasho oo iyada badisana hogaankii qabanaysa marka kulankan galabta aad loo wada sugayaa saadaasha ama favoritka dadka inta badan waxay leeyihiin kulamada waaweyn oo kale macallimiinta way kala cabsadaan waxay fiirsadaan bareejo in hal dhibic helaan macallin walba horyaalka Soomaaliya ee koox weyn leeliyo wuxuu ku fikiraa in kooxaha yar uu garaaco waaweynka hadduu ka badi waa bareejo karaasada marka ciyaartu waxaa loo badinayaa inay bareejo ku dhamaan karto laakiin labada kooxoodna waxay doonayaan in midkood ay adkaato oo maadaama 3 dhibcan muhiim ay urdayaan watahay daariq aad baad umaasan tahay ciyaarahaasi ama kulankaasi xiisaha leh waxyaabay ka soo kordha waan idinla wadaagi doonaa waa tahay dhegeystayaal markale ismaqal wacan barnaamijkeena ayaan gudagelaynaa haddii aan markan eegno qodobada kale oo aan gudagelayno maadaama aan kasoo hadalnay ciyaaraha horyaalka Soomaali Premier League oo kulan weyni u dhacayo oo ay iska hor imaanayaan Muqdisho City Club iyo sidoo kale dekada balse da'yartii kooxda Liverpool ayaa u soo baxay wareegga xiga ee koobka FA Cup-ka nadiga Ridis ayaa gaartay wareegga shanaad ee FA Cup-ka markii ay garaaceen kooxda lagu magacaabo Shrewsbury
ciyaar markaasi ka dhacday garoonka Anfield. Daayirta Liverpool ayaa sii ilaaliyay rikoorka ee Liverpool looga badinin gurigeeda Anfield oo haatan maraya 40 kulan tartamada oo dhan. Qaybtii hore waxa ay ku dhibtoodeen inay wax gool ah dhaliyaan iyaga oo aan markaasi shabaqa gaarin, inkastoo ay sameeyeen fursado waxa ayna ku dhamaatay barbaro gool la'aan ah. Kooxda Shrewsbury ayaa ciyaarta ku soo laabatay iyaga oo sii wada shabaqilaashigooda, halka sidoo kalena naadiga Liverpool ay doonayeen in iyaguna shabaqooda ilaashadaan oo ay markaasi helaan 3 dhibcood sidoo kalena, balse daqiiqadii 75aad ee ciyaarta waxa marka ay heleen gool qalad markaasi ay lahaayeen kooxda Shrewsbury Town oo daafaca waliba ahna daafacii hore ee Manchester United nig lagu magacaabo Rowan Williams ayaana iska dhaliyay kubadda iyada oo uu hogaanka u dhiibay kooxda Liverpool, waxaana ciyaarta goolkaasi kadib u suuragelin labadan kooxood inay sameeyaan gool dhalin kale, waxaana ay keentay in ciyaarta ay markaa ku idlaato hali eberkaasi, waxayna qaabili doontaa Liverpool wareegga shanaad ee tartankan kooxda Chelsea. kooxaha kale ee soo baxay waxaa qayb ka naadiga Birmingham City oo sidoo kale la qaatay Coventry City ciyaar balse 2-2 la isku mari waayay, ugu dambeysay ay ku soo baxday kooxda Birmingham City. Cardiff City iyo Reading 3-3 ayay waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta extra time-kii ku kala baxeen iyadoo rigoore ay ku soo baxday naadiga Reading, balse kooxda Derby County ayaa khasaare 4-2 ah u geysatay kooxda lagu magacaabo Northampton Town, waxaana goolashaasi afarta mid ka mid a dhaliyay laacibkii hore ee United-ka ee Wayne Rooney, kaas oo u suura gashay in uu ka hor yimaado kooxdiisii hore kadib kooxdiisa markay u soo baxday wareegga shanaad ee tartankani. naadigan waxaa goolasha u bilaabay daqiiqadii 28 ninka lagu magacaabo Andre, balse Duane Holmes ayaa 35 daqiiqo ay ka heleen goolka labaad, halka Nick Adams uu dhaliyay goolka kaliya ee kooxda Northampton, balse ciyaaryahanka lagu magacaabo Jack Marriott ayaa 3 ka dhigay ciyaarta 51 daqiiqo markay ahayd, waxaana uu ahaa sidoo kale daqiiqadii 77 gool uu dhaliyay laacibka Wayne Rooney oo ahaa rigoore, balse rigoore kale oo la dhigay ciyaartan Sam Hawkins ayaana dhaliyay rigoore kale daqiiqadii 84 ee ciyaarta. 4-2 ayana Derby ku badisay si ay u tiigsadaan tartanka FA Cup-ka wareegiisa xiga, iyadoona uu Wayne Rooney kasoo muuqan doono kooxdiisii hore kadib ka tegitaankiisii naadiga Everton. naadiga Liverpool waxyaabaha laga diiwaangeliyay waxaa qayb ka ah haatan waxa ay unbeaten yihiin 40 kulan oo dhammaan tartamada ah, 35 guulood iyo 5 barbaro ah, iyagoona ku guuleysanaya mid kasta oo ka mid ah 7 kulan ee ugu dambeysay gurigooda ay ku ciyaareen iyada oo markaa wax gool ah laga dhalinin. sidoo kale naadigan waxyaabaha laga soo diiwaangeliyay waxaa qayb ka ah kooxda Shrewsbury ayaa dhalisay 2 gool oo kama ah oo loo yaqaan on goals, kulan ay ka hortagtay ama kulamo ay qaabishay kooxda Liverpool tartanka FA Cup-ka xilli ciyaareedkan, waana markii ugu horeysay naadiga Leeds ay faa'iido 2 gool ah oo kama la isaga dhaliyay ee hesho marka la eego isla waqtiga uu socdo tartanka FA Cup-ka tan iyo kooxda Brighton oo dhalisay 3 gool ciyaar 6-1 ay kaga badiyeen kulan ka dhacay garoonka Anfield bishii February waa 2012. 5 ka mid ahi 6 da'yar ah oo kusoo bilowday safka hore ee kooxda Liverpool ayaa taariikhda kooxda waxay u noqdeen sumad kadib markii la magacaabay tan iyo Jordan Klopp markii uu kooxdani majaraha u qabtay October 2015, waxaana ay sidaa u sameeyeen da'yaraasha ugu badan ciyaartii xalay, iyadoo sidoo kalena Aston Villa ay ku sameeyeen waa bishii December ee 2019 oo da'yar ay safeen ciyaarta ay ka hortageen. sidoo kale kooxda Plymouth bishii January 2017 oo 2 jeer ah, sidoo kale Exeter oo naadiga Leicester ah oo 2016, waxaana ay ku soo bilaabeen xidigaha ugu da'da yaraa ee kooxdan safkeeda kamida. dhanka kalena Francisco waxaa la ciyaaray tartanka League 1-ka, naadiga Monaco 1-0 ayay kaga badisay kooxdii u soo martay Angers, halka Lille 1-0 ay kaga badisay naadiga Rennes, balse naadiga Paris Saint-Germain ayaa u dhaqaaqday 15 dhibcood oo nadiif ah oo hogaanka horyaalka La Liga haatan ay ku hayaan. naadiga Nantes khasaare waxa ay markaasi u geysteen 2-1 ah, iyadoona PSG ay goolasha u dhaliyeen 29 daqiiqo. Mauro Icardi oo caawin ka gudoomay ciyaaryahanka lagu magacaabo Angel Di Maria, balse Di Maria ayaa mar kale caawin sameeyay 57 daqiiqo. ciyaaryahanka lagu magacaabo Thilo Kehrer ayaana markaa dhaliyay, halka Morton
simon waa Moises Simon oo markaasi goolka madiga ah 68 daqiiqo u dhaliyay naadigiisa. Kooxda Paris haatan waxa ay markaa dhaliyeen ayaa leeyahay 100 gool oo dhammaan tartamada ah xilli ciyaareedkan. kaliya Liverpool waa ay rahdeen Manchester City oo 102 ah ayaa in ka badan dhalisay marka la eego kooxdan shanta horyaal ee waaweyn horyaaladooda kooxaha ka ciyaara. dhanka kalena naadiga Chelsea waxa ay markaa gacanta u gelisay Frank Lampard lacag dhan 150 milyan oo pound xagaagi. macalinka kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa haatan faa'iido u haysta 150 milyan oo pound oo ku galaya suuqa. hase ahaatee kooxda Lampard ayaana sameynin bishii ugu dambeysay in ay safkooda ciyaaryahanna kusoo daraan. Blues ayaana doonaysa in ay suuqgal badan sameyso inkastoo haatan bishii January aysan sameynin wax ciyaaryahan ah oo ay kusoo dareen marka la eego safkooda koobaad. ciyaaryahanada lagu magacaabo Petri sidoo kale Oliver Giroud ayay u badan tahay in qandaraasyadoodu ay dhamaadaan, balse naadiga ayaa u baahan doonto bedelka laacibiinta boosaskooda. wargeyska Evening Standard ayaana sheegaya macallin Lampard inuu markaa ku kalsoonaan doono safkiisa maadaama haatan uusan suuqgal sameynin, balse waxaa la rajeynayaa in sanadka maxil ciyaareedka cusub ee soo aadan bilaabashadiisa uu sameeyo suuqgal wanaagsan. ciyaaryahanka Lyon Ousmane Dembele iyo sidoo kale Napoli ciyaaryahankooda Dries Mertens ayaa ah labada ciyaaryahan ee lala xiriirinaya garoonka Stamford Bridge. kooxda Juventusna waxay kula tartami doontaa naadiga Bayern Munich saxiixa garabka Lorisane. kooxda marada duqda ah waxa ay ka areensanayaan u dhaqaaqitaanka garabka Manchester City Lorisane. kooxda reer Talyaani ayaana si dhow ula socota xaaladda ciyaaryahankan soo kabashadiisa dhaawaca ah. Bayern Munich ayaa hore loola xiriirinaya Sane, balse waxaa la soo jeediyay kooxda in ciyaaryahanka qaranka Jarmalka uu u dhow yahay inuu u dhaqaaqo dhanka Bundesliga ama u dhawaa ay raahdeen inta lagu guda jiray xagaagi. balse sida uu qoray wargeyska lagu magacaabo Inside Football, naadiga Juventus ayaa markaasi xoraansanaysa xaaladda ciyaaryahanka Bayern Munich ay saxiixayso doonaysa Sane. 24 sano jirku wuxuu u furan yahay ka bixitaanka kooxdiisa Manchester City, inkastoo Bavarianiska haatan aysan door bidaynin ayaa leeyahay go'aan degdeg ah oo ay ka gaaraan maadaama ciyaaryahanka uu yahay mid ka shaqeynaya kasoo kabashada dhaawaciisa. si waliba xidigan garabka ah wuxuu kusoo laaban doonaa ayaa leeyahay kulamada Pep Guardiola bishan aynu ku guda jirno. dhanka kalena kooxda Manchester United ayaa doonaysa in Sergio Romero booskiisa la keeno xidiga lagu magacaabo Lee Grant. Manchester United ayaa liiska ku darsatay xidigaha bedeli karaya shabaq dhowrayaasha shabaq dhowraha kooxdeeda ninka lagu magacaabo Sergio Romero oo ay u doonayaan laacibka lagu magacaabo Lee Grant. labada ciyaaryahan ayaana qandaraaskoodu u dhacaya xagaagan. David De Gea oo ah markaasi midka dooqa koobaad ee United-ka, balse ahaa mid ka mid ah xidigaha soo sameeyay ama ciyaaryahankan isaga oo 7 xilli ciyaareed bandhig wacan soo sameynayay naadigiisa, balse haatan dhaleecayn ayuu la kulmayaa. wargeyska The Express ayaana qoraya Old Trafford kooxda ka dhisan inay u furan tahay in ay qandaraaska u kordhiso ciyaaryahanka lagu magacaabo Romero, balse mustaqbalka marka la eego ciyaaryahankan 32 sano jirka ah ayaa laga yaabaa inay u dhaqaaqaan meel kale. laacibka qaranka Argentina ayaana kasoo muuqan kulan Premier League ah tan iyo bishii May ee 2018 waxaana uu ka qaataa toddobaadkii 60,000 oo pound, balse warbixinta waxay intaa ku raacinaysaa in laacibka Romero haatan uu u furan yahay inuu ka baxo garoonka kooxda ay ku ciyaarto Manchester Old Trafford. Guarantee ayaana 2 kulan kasoo muuqday marka la eego United-ka 2 xilli ciyaareed ku qaatay, balse haatan wuxuu u muuqdaa ciyaaryahankan in uu bixi doono marka la eego dhamaadka xilli ciyaareedkan marka uu ilaado. naadiga Manchester City waxay bartaameed ka dhiganaysaa 2 daafac oo markaasi dhexda ka ciyaara. Manchester City ayaa markaasi qarka u saaran bartaameedkooda inay u dhaqaaqaan 2 ciyaaryahan oo markaasi dambeedka dhexe ah xilli ciyaareedkan. mustaqbalka ciyaaryahanka lagu magacaabo John Stones ayaana shaki la gelinaya laacibka qaranka England. Manchester City ayaana xilli ciyaareedkan marka la eego dhanka daafacyada ka jilcan iyadoo 29 gool laga dhaliyay Premier League, balse waxay ku guuldareysteen 22 dhibcood in ay ka soo yareeyaan ama ay markaasi soo dhimaanba dhibcahaasi u dhexeeya kooxda Liverpool oo hogaanka haysa. wargeyska The Times ayaana qoraya Pep Guardiola inuu qorshaha ku darsaday keenista 2 ciyaaryahan cusub oo dambeedka dhexe ah. Stones iyo Lorisane ayaana ah 2 ciyaaryahan ee bixi karaya. Guardiola ayaana haatan waxa uu doonayaa ciyaaryahana
dambeedka uga ciyaara maadaama goolo dhowr ah kooxda laga dhaliyey xil ciyaareedkan kadib markii uu waayey kabtankiisii hore ee Vicente Company. Aymeric Laporte ayaa sidoo kale ku maqnaa muddo dheer xil ciyaareedkan dhaawac halka macalinka Isbaanishka haatan uu ku qasbi doono ciyaaryahanada lagu magacaabo Fernandinho sidoo kale Rodri in ay dhanka iyo daafaca ay daboolaan. Stones ayaa lala xiriirinayay kooxda Arsenal bishii January suuq furanka balse ciyaaryahankii hore Everton ayaa ku guuldareystay in uu markaa ka soo muuqdo safka Manchester City ciyaartii ka hortageen kooxda Tottenham Hotspur Axadii. Qodobo kale oo dhowr ah ayaa inoo soo socda oo ka mid tahay kooxda Manchester United oo mudnaanta siinaysa soo qaadashada ninka lagu magacaabo Jack Grealish, kooxda macallin Pep Guardiola oo u ogolaanaysa ciyaaryahanka lagu magacaabo Joao Cancelo in uu ka baxo balse markan dhanka farsamada. waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan 102.5 megahertz idaacadda himil gaar ahaan barnaamijka xulka ciyaaraha. kooxda macallin Pep ayaa u ogolaanaysa Joao Cancelo inuu baxo. Manchester City ayaa u ogolaanaysa dambeedka midig ee lagu magacaabo Joao Cancelo inuu kooxda isaga tago xagaagan kaliya hal xilli ciyaareed uun kadib markii uu ka soo dhaqaaqay kooxda Juventus. Cancelo ayaa markaa ugu fadhiyay Manchester City lacag dhan 27 milyan oo pound oo lagu diray Danilo xagaagii 2019 balse waxaa ku adkaatay inuu bandhig wacan ku sameeyay kooxda kaliya 7 kulan ayuu ku soo bilowday Premier League. sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail, Inter Milan iyo Bayern Munich ayaa ka arrinsanaya dalabka gudbinta laacibka qaranka Portugal balse Manchester City waxay ku qiimeynaysaa lacag 60 milyan oo pound. Tottenham Hotspur ayaa ahayd koox kale oo xiiso u haysay January si ay ugu dhaqaaqdo 25 sano jirka balse waxay ku guuldareysteen inay dhammaystiraan heshiiska. warbixinta waxay intaa raacisay Cancelo inuu sidoo kale ka arrisanayo in muddo dheer oo mustaqbalkiisa ah uu markaa meel mariyo da'yarahan ayaana ugu dambeyn waxa ay muuqataa in uu ka dhaqaaqi karo naadigiisa. xidigan 16 kulan ayuu Cancelo uga soo muuqday qarankiisa Portugal tan iyo safashadiisii ugu horeysay 2016 waxaana uu dhaliyay 3 gool. dhanka kalena isla arrimaha Manchester City waxaa naadigan la warinayaa waarahdee Manchester United in ay mudnaanta siinayso soo qaadashada ciyaaryahan ka lagu magacaabo Jack Grealish. Manchester United ayaa muhiimada siin doonta inay u dhaqaaqdo Aston Villa qadkooda dhexe ee Jack Grealish xagaagan. Leicester City ciyaaryahankooda ninka lagu magacaabo James Maddison oo ay sidoo kale isku dayaan saxiixiisa balse Ole Gunnar Solskjaer ayaa la xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo labada ciyaaryahan waa waqtigii ugu dambeeyay ee bishii la soo dhaafay. sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail, laacibka Grealish ayaa haatan Manchester ay mudnaanta koobatiin doontaa qadkan dhexe iyaga oo bartilmaameedsanaya ciyaaryahanka ka soo baxay akadeemiyadda ayaana loo diiwaangeliyay 9 gool 5 caawin oo sameeyay sidoo kale xilli ciyaareedkan haatan socda. naadiga ayaa la filayaa sidoo kale in ay la kulanto London oo ah Tottenham Hotspur oo sidoo kale u dhaweyd in ciyaaryahankan la saxiixato Grealish 2018 balse laacibka Maddison ayaa ah xidig kale oo lagu xamanayo Old Trafford balse United-ka ayaa ka cabsi qabta haatan in markaa ay u dhawaadaan in uu u dhawaado ciyaaryahankan inuu heshiis cusub oo saxiixo si loogu sii hayo ayaa leeyahay garoonka King Power Stadium. naadigan waxa ay kaliya soo iibsadeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Bruno Fernandes bishii January balse waxa laga baaqdan qabaa in Paul Pogba uu kooxda isaga baxo xilli ciyaareedkan gabagabadiisa. dhinaca kalena naadiga Atletico Madrid ayaa soo bandhigtay baahida ay u qabto ciyaaryahanka qadka dhexe Barcelona iyo Rakitic. Atletico Madrid ayaa haatan quudareynaysa qad dhaxaha kooxda Barcelona iyo Rakitic oo ay u arkaan saxiixiisa mid macquul ah. marka la eego waqtigan ciyaaryahankan waxa uu noqday mid su'aal badan laga keeno ku bilaabashada line-upka ee kooxda Rakitic ayaan la ogsoon yahay in waqti xaadirkan uu doonayo in uu isaga baxo ama ayraahde uu dareemayo inuusan ku faraxsanayn xilli ciyaareedkan 18 bilood oo ka harsan qandaraaskiisa 31 sano jirka waxay muuqataa Camp Nou inuu ka baxayo marka la eego 2020
wargeyska Cadena Ser ayaa qoraya Atletico inay isku diyaarisay dalab ay u gudbiso ee laacibka qaranka Croatia waxaase ay la kulmi doontaa ayaa leeyahay tartan marka la eego xilli ciyaareedka dambe. ciyaaryahanka lagu magacaabo Harry Kane marka la eego macalinkiisa waxa uu doonayaa ama rajeynayaa in weeraryahanka uu soo laaban doono xilli ciyaareedkan. tababaraha kooxda ee Jose Mourinho ayaa waxa uu rajeynayaa dhaawaca laacibkiisa Harry Kane inuu markaa kasoo kabsado labada kulan ee ugu dambeysay Premier League xilli ciyaareedkan. kabtanka qaranka England ee 26 sano jirka ah ayaa qalin lagu sameeyay oo ku aadan muruqa balse waxa uu kaga yimid marka la eego ciyaartii sanadka cusub ee la qaateen Southampton. wuu soo laaban doonaa kuna soo laaban doonaa tababarka bisha Abriil 2 bilood ka hor Euro 2020 bilaabashadiisa. waxa uu yiri sidoo kale soo noqoshadiisa ma ahan ayuu leeyahay mid sahlan balse hadda waxa uu leeyahay wax walba baahi waa okay. waxaan rajeynayaa in daaweyn fiican uu helo. markii wax laga weydiiyay haddii Kane uu ciyaari karo marka la eego ciyaarta soo aadan naadiga Sportska ama ciyaarahaas ay la qaadan doonto kulanka gurigooda ka dhacaya naadiga Leicester City 9 bisha May. laga yaabee waan u baahannahay kulankaasi ayuu leeyahay balse waxaa macquul ah in aanu baxnaanin ku samayno. laacibka Lionel Messi waxa uu markaa dhaleeceeyay agaasimaha Sportiga Barcelona Eric Abidal. Lionel Messi ayaa dhaleeceyn dusha ka saaray agaasimaha Sportiga Barcelona Eric Abidal isagoo oo sheegay in ciyaartoygu ay markaas aysan shaqo adag ku lahayn marka la eego macalinkii hore ee Ernest Valverde ayaa shaqada laga ceeriyay bishii Janaayo waxaana bedelay ninka lagu magacaabo Zidane. Abidal oo ah markaa saaxiibkii hore ee laacibka Messi ayaa faalooyin ka bixiyay waraysi uu siiyay wargeyska Isbaanishka ah ee Diario Sport. laakiin talaadadii Messi oo 23 sano jir ah ayaa ku jawaabay marka aad ka hadlaysid ciyaartoy waa inaad magacyadooda siisaa maxaa yeelay haddii aysan ahayn waxa ay hawada ku marinayaan waxyaabo aan run ahayn ayuu yiri. Valverde oo markaa kooxda kaga tagay halka ugu sareysa ee hogaanka horyaalka La Liga ayaa haatan joogto booska labaad. waraysi uu siiyay wargeyska Abidal waxa uu hore u yiri ciyaartoy badan kuma qanacsana ama si adag uma shaqeynayaan. sidoo kale waxaa jira cilad dhanka wada shaqeynta oo dhanka gudaha ah kooxda. xiriirka ka dhaxeeya macalinka iyo qolka labiska mar walba way fiicnaayeen laakiin waxaa jira waxyaabo waxa uu leeyahay xidig hore taabanaysa waxaana u sheegay kooxda waxaana ku fikiray ayuu leeyahay go'aan aan ku wada gaarno ugu dambeyn Valverde. laacibka 6 jeer hantiye abaalmarinta Ballon d'Or ee Messi ayaana waxa uu markaa ku soo qoray boggiisa Instagram-ka war markaasi taabanaya ama ka hadlayaba marka la eego go'aanada madaxda kooxda. qaybihii dambe ee barnaamijkana waan ku sii dhownahay haddii aan eegno wararka uga hadalhayn inta badan laacibka qadka dhexe Faransiiska Paul Pogba ayaa u sheegay saaxiibadiisa kooxda Manchester United in weli uu doonayo inuu isaga tago naadiga xilli ciyaareedka. Evening Standard ayaa laga soo xigtay Jose waa ayraahde Juventus waxay ka arrinsanaysaa in lacago badan ugu dhaqaaqdo laacibka Manchester City sidoo kale qaranka Germany ee lagu magacaabo Leroy Sané. 24 sano jirkan wuxuu bartilmaameed u yahayba kooxda Bayern Munich sida laga soo xiganayo Marseille. Chelsea waxay isku diyaarisay in ay siiso macalinka lagu magacaabo Frank Lampard 150 milyan oo pound oo ku bixiyay suuqa balse Lyon weeraryahankooda Moussa Dembele oo 16 sano jir ah ayaa ah kan ugu sarreeya bartilmaameedkooda. sida uu qoray wargeyska Evening Standard. Manchester City macalinkooda Pep Guardiola waxa uu doonayaa saxiix 2 ciyaartoy oo dambeed ka dhexa ah xilli ciyaareedkan maadaama mustaqbalkiisa uu shaki ku jiro John Stones. wargeyska The Times ayaa qoray Man United sidoo kale waxa ay mudnaanta siin doontaa Aston Villa qad dhexdooda Jack Grealish oo 24 sano jir ah iyo ciyaaryahanka James Maddison ee qaranka England ka oo ay markaa ka cabsi qabaan inuu dhow yahayba heshiis cusub inuu qalinka ugu duugo naadigiisa Leicester City. wargeyska Mirror ayaa daawacay Atletico Madrid waxay ka arrinsanaysaa suurtagalnimada ciyaaryahanka waa macalinkii hore ee Tottenham Mauricio Pochettino inuu qayb ka noqdo shirkadooda marka la eego Diego Simeone kooxdiisa. wargeyska Telegraph sidoo uu qoray Arsenal waxay xiisanaysaa Feyenoord iyo sidoo kale Turkiga ciyaaryahanka under 21 ah ama 22 sano jir xidigaha da'dooda ka hooseysa ee lagu magacaabo Arkun oo 19 sano jir ah. wargeyska Daily Mail ayaa qoraya
arsenal iyo sidoo kale evertonna waxay dalabkooda gudbiyeen lili iyo braziliyaanka daafacooda gabriel martinel waa magalhesi 20 sano jirkan ee bishii January balse labadooda ma aysan la kulmin qiimaha ay naadiga ku doonayso ciyaaryahankan wargeyska Luton Sport ayaa qoraya Manchester waa Leicester City iyo Newcastle United ayaa isku diyaariyay bixinta 15 milyan oo pound oo kooxda Brentford iyo ciyaaryahanka Algeria garabka uga ciyaaray lagu magacaabo Said ay ku doonayaan 24 sano jirka xagaaga wargeyska dasan ayaa qoraya Atletico Bilbao waxa ay isha ku haysaa in ay markaa si ilaashato xaaladda ama indhaha ku siiyayso xaaladda goolhayihii hore ama goolhayahoodii hore ee lagu magacaabo Kepa Arrizabalaga kadib 25 sano jirka qaranka Spain markii uu waayay booskiisa ama kursiga keydka uu ka soo muuqday ciyaartii macallin Frank Lampard ee kaga hortageen kooxda Leicester City sida laga soo xiganayo wargeyska dasan kulamo ayaa jira oo markaasi la ciyaari doono iyadoo tartanka Copa del Rey ee la ciyaarayo waxaana ciyaaraya kooxaha waaweyn ee dalkaasi iyada oo Real Madrid iyo sidoo kale Barcelona ay ciyaarahaasi ciyaari doonaan tartanka Copa del Rey markaan eegno kooxaha ay la ciyaarayaan naadiyadaasi waaweyn ee La Ligaha ku xafiltama waxa qayb ka ah maadaama Granada ay guul hore u soo gaartay ciyaartii koobkan ay kula ciyaareen kooxda Valencia Real Madrid iyo Real Sociedad ayaa wada ciyaari doona halka Atletico Bilbao ay martigelin doonto kooxda Barcelona waana ciyaaraha markaasi tartanka Copa del Rey ka dhici doona dhanka wararka kale ee ugu hadalhaynta badan haddii aan wax ka sii eegnana Crystal Palace macallinkooda ninka lagu magacaabo Roy Hodgson oo 27 sano jir ah ayaa ka tagi kara garoonka Selhurst Park wax ka yar uun kadib naadiga markii uu leelinayay sida uu qorsheynayay kooxda inay suuqgal u sameyso aan u suuragelin wargeyska The Times ayaa laga soo xiganaya barnaamijkeena xulka ayaan jecelahay doornimadan inaan intaa ku soo afmeero tan iyo kulanti dambe nabadgelyo